السلام عليكم ورحمة الله. أرين أدي مهمة الله بهالله إن شاء الله تعالى كفير سكومنتك قريسي مسج كنا وانا دقيسم كدب رأيك قر إلى ديره ما أنت وحن كهلنا روتين كواحد ده أما نمطية سي نلاش بني آدم كأوبر بريسو يسبدل ذا يكون كيني كرتدت إسقابه أما ده relationship وذله بوينتي كان هدا فهذنتي بروبليما وين أنا ليش هذا كسبسن وح وين أكفهمتهم تا إن شاء الله خاصة يانج جنريشن إذا كهدا عصب جورسناي يقف كروين إنه ليش يسبدلوا كاس ما أنت وحوه يستا tools كوبدل لها علمي كوبدل لها psychology استعمالنا علمي استعمالنا دين استعمالنا ما لغو بوقي نقني حضارة ذا علمي كهنا جم وقضوا فهمنا الموضوع ما شو صعده مركب وحلا ده الروتين ك أما إسبدل أنت بني آدم كوحيكو كلفتا وحنا السمين لهين إنه سمعي marka qofka markuu guursanayo axlaam wardiyo haystaa wuxuu leeyahay nolosheeda saanay noqonay gabadheedu saanay u egtahay ninkeedu saan u ekaana hammi iyo imagination asiga uu rabay uu guurka ku galaya waaqicina waa ka duwan yahay noloshii caadiga ahayd oo la kacay la kufaayo way ka duwan tahay wixii uu maladii uu haystay ama dreamku haystay dad badanna isbedelo waaweyn oo noloshooda ku dhaco waxay keentaa inay ama noloshii ka burburto ama ciriiri ku noolaado marka routiinka see loo jabiyaa routiinkaas see u noqotaa bini aadan mutajaddida oo isbedelo oo nolosha cusub la qabsan karo maantaba maaragtay sanad kasta ama laba sano kastaba wax cusub naftiisa ay ku soo zaa'idaan routiinkaas see looga hortagaa naftuna ay macaano cusub u aragtaa ayna nolosheedaas ayna uga burburin taasaa wiil iyo gabar inay fahmaan ay u baahan tahay marka routiinku muxuu yahay routiinku wuxuu yahay maanta inaad baxdid soo shaqaysid soo laabatid gurigaaga imo ilmahaagii zawjadaadii baatigi waa baatigi macwiisti waa macwiisti dadku ayagoo israbo laakiin waxay noqonaysaa namad ma'luuf ah oo maaragta boring ah ay naftu ku tahay ilaahayna naftu wuxuu ku abuuray masaa'ib inay gasho inay maaragtay wax adag samayso inay horumarto inay wax qabsato caqliyan iyo mataqaana nolol ahaan u horumarto namadiyada markay timaado ama routiinka markuu yimaado dad badana dadku waxay bilaabaan inay nololaha kala fiiriyaan ay naftooda la barbar dhigaan alla qofkaas waxaas uu haysta anigana waxaan ma haysto waxaan uu qofkan haysto waa haysan kartaa nooc adiga kugu saabsan laakiin namadka aad ku jirto waa inuu isbedel ku imaada marka intaan routiinka ka hadlin hal shay routiinka waa dhaafeenaya hal shay aan sharaxay waa loo soo laabanaa routiinka ma gabdhuhuna ku saabsan yahay ma fahansan tahay farqiga u dhaxeeyo in wax laga helo iyo wax nolol oo devoted ah u tahay oo maanta dhan oo u kicayso oo ku faysid oo u shaqeynaysid oo ilmo ku joogan farqiga ma taqaana ka helitaanku awood bini aadamka kuma jiraan waa wax uu ka helay waa wax ku abuuran laga yaabo inuu gabar ka helo ama ma taqaana likings yeesha ama aad wax ku ogaatid inuu qof kale la socday waxaas waxa keenay waa yani hamigiisa yaa keenay adigana asaaskii baa tahay barana ma aragtay gabadha la leeyahay haday gabadha weyn ay wax ogaatay ilada ama aniga ama ayada oo qofkaas laga tagay la rabay rabida qof kasta la rabi karaa guurka iyo mataqaana in qof noloshaada ku jiraan waa shay asaasiya waa ahaanshadaadii oo dhan waa taariikhdaadii mararka qaarkood waxa ka heshay ugama tagaysid waxa aad adiga mas'uulka ka tahay ama aad u kacdo u kuftay marka kala saar wax kastana ha isla barbar dhigin qofku muhayya buu u yahay wax alle iyo wixii muhiimshiisa ah inuu ka helo ka helitaanku waa shay in adiga lagu qabo guri aad leedahay asaaski tahayna waa shay kale waxaa furi doontiin labada naag iyo saddexda naag cilmi kale oo isticmaalayna mar kale la sharaxaya marka adoo taas kala saartay aan routiinka u soo laabano routiinku maxaa lagu jabin karaa routiinkaas oo boringa ka dhigayo oo xiisihii nolosha ka qaadayo maxaa lagu jabin karaa aan ka hadlaynaa waxaa lagu jabin karaa routiinka inaad saddex shay fahantid saddexdaas shay nimankay ku saabsan tahay maxaa naagaha looga hadli waayey buuqaas yaan la furin saddexdan shay oo nimanka ku saabsan fahan آدم عليه السلام وأساسك آدمك حاونا ولا أبوري آدم وح كما قن وأبورك أسيق لك بحيي كما قن جلجلاء كما قن إن أنوثة كما قن أما إن قبردان ماركتي قبر نمدا قروح ذا وحصل دن جلجلاء كما قن هذا الديناميك جاس فهمتي آدم دن تعرفتك جاري كرتا مركاني كلمة كانوا استعمالها ما أقانا لكن صورة هنكديجينا صوري هنا وحي رئيس الجل إنه يصود منطقنا أو ما لها اسكو سويري اسمها صورة هو دقن قفك إلهي سواسي وقفك دحل أهان أهلا وهو أهلا قف كان أقوان إنه برنكرا صورة هو جلجلاعة وماركتي وإن لغو صحيسو وإن أتهي قف very feminine وحس ووحا كمقن
moor aad adayg noqotod asiga u ogaatid moor oo maaragtay uu kula dhaqmaayo sida loola dhaqmo maaragtay nimanka uu kula dhaqmo moor maaragtay aad jiljilcan tahay aad isweyd tahay hadalkaaga wanaagsan yahay oo moor aad naagnimadaadu ay aad u qurux badan tahay mooru maanta dhan qofkana xiisa kuu qabo marka suuruhu waa cilmi waa u dhalasho waa xadaaro la kala dhaxlo dhinaca markay noqoto gabadha hooyaduna in laga dhaxlana way tahay marka insha allahu tacaala dhinacaas aad focuska u saar waa tan koowaad oo burburiso routiinka noloshaan boorinka noqonayso gabar suuroonayso maantaba nooc kasta ku ah caraf badan oo qurux badan naf kasto aa jecel tan labaad oo suuraha kusoo xigto weligaa ogow mas-uuliyad nin ha ka qaadin mas-uuliyadiisa ha ka qaadin mas-uuliyadda ilaahay baa u abuuray waxtarku waa from men to women aday tahay in lagu keergareeyo wax kasta lagu qabto lagu kaco lagu kufo ma fahamtay mar alla iyo markii dowrkaas uu isbedelo shaqo aadan lahayn aad qabatay shaqo waxaa qabatay aan lagugu talagelin dhibkeeduna aduu uu ku sugayaa marka waxyaabaha lagu dhibtoodo wixii loo dhibtoodo maarwaart waa la jecel yahay easy loogama tali karo marka way ku fiicanta abo waxaan ii keen inuu gurigiisa usoo shaqaysto inuu u kaco u kufo jacayl iyo wuxuu ka qaadaa abuurkiisay ka mid tahay inuu dadaalo oo wax kasta ilmihiisa u qabto badanaa waa aragteen waxaana u qabtay kana u garab istaagay ooyintana aday ku sugaysaa shaqadiisa qofka qabato xiise saasa uma haayo ninku xataa hadduu ka benefit garaynayo wuxuu xiise u hayaa qof uu u kaco u kufo abuurka ilaahay asaas ah marka yaan lagu hor soconina shaqada ha loo daayo dad badanaa ka xanaaqi doona arrintaasayto adigana berito consequencega oo actionkaaga u adkayso arrintaas meeshaasaan ku dhaafayna arrin muhiimaan ka hadlaynaa gabdhaha qaarkoodna xasaasiye ay ka qabaan waa qabta ama maxay sheeg ninka aad looga ixtiraamo gurigiisa oo qadarin looga haayo xataa markii la qaldamo si nidaam loo wada hadlaayo uu million times uu gurigiisa u dadaalayaa oo qadarinayaa dan nin wixii la rabo la iska dhahayo oon ilmaha laga aqoonin oo qof qadarinaysa ayna jirin maaragtay rijaalku waa qawaamoon jeclo ama ha jeclaan ama ha ku xanuujiso marka adiga qawaamadiisa u qirtidood wanaajisidood ixtiraamtid dana badan oo haddaa isku xanaajin lahayd ood isku buuqi lahayd aadan ka gaari lahayn aad ka gaaraysaa marka ruleskaas waxay u yaalaan oo routiinka jabinaya inaa adiga benefit garaysid in wax lagu qabto adiga ay ku benefit garaynaysaa inaa fahantid maaragtay in case ay naa kala imaato daruuri maaha inay booskaaga kala tahay waa wax yaroo laga helay wax weyn ha ka dhigin aday ku faa'iideynaysaa gurigaaga ku xafdinaysaa sidoo kale qadarinta waa la isku jeclaadaa qofka hadduu kuu shaqeeyo wax kuu qabtay abo jazaakumullah intaana noo qabatay qofka hamiyaa galaaya inta uu kuu sameeyo ka badan inuu kuu sameeyo appreciationku iyo inaad tahay qof bini aadanka u mahad celinayo waa wax weyn maxaa ugu weyn oo gurigaaga lagaaga mahad celina wax qabadkii inaad soo shaqaysay inaad wax tartay inaad wax siisay marka intaasna faa'iidadooda adigaa leh marka gabdhaha awood waxay u leeyihiin routiinka inay jabiyaan fiiri noloshaada maxaa routine ah oo boring ka dhigay waa in la noqoto qof loo soo xiiso hadalkaaga in loo soo xiiso sheekadaada loo xiiso cilmigaaga loo xiiso akhlaaqdaada loo xiiso diintaada loo xiiso inta lagu soo shaqaynayo maalin kasta waxaa isku daydaa in cilmigu hadda waa mutaax youtube adduunka meel kastuu yaala naftaada horumari waa qasab inaad naftaada horumarisid maaha optional wax baro maxay ahayd haddii cunto kaa maqantaa cunto baro hadduu cilmi kaa maqan haddii diin kaa barantahay intaba in bini aadan isbabedelo noqo routine ha isku dhaafin iyo halbaati ha isku dhaafin very respectfulna inaa u hadlo waa rabaa gabdhihiina wax sheegana waa rabaa routiinka jooji cuntadii waa cuntadii hadalkii waa hadalkii xanaaqi waa xanaaqiyay noqonin adduunka waxaa loogu jecel yahay naagaha mutanaaqidaadka qabaan dabciyada kala duwan gabdhaha qabaan waa very sweet maalinba mawjaday ku saaraysaa aad ay u qurux badan yihiin shakhsiyadooda maanta dhan maray kaa qosol siinay maray ku garab istaagay maray kaa farxinay ha noqonin insaan namati ah xadaarooyinka kala duwan haddaa baratid oo dhageysatid insaan waxaa noqonaysaa oo mushakal ah cilmiyadaa la bartaa dadkaa la dhageystaa dhaqamadaa la dhageystaa xadaarooyinka horaa la bartaa dhaqamadeena horaa la boqotaa waxay ka dhigaysaa insaan aan routiini ahayn mawduucu waa dheeryahay 10 minid inaan ku dhameeyana way tahay waa idin salaamaya nolosha allah idin qurxiyo su'aalaha qabtiin iisoo qora anaa program ka sameynayo please akhlaaqda iyo diinta hala ilaaliyo commentiyada markii la qoraayo nolosha ku macaata farxad ku noolo ku khayr kala faa'iidana anaa naga dhigo yaa rab